maanta waa taariikhdu tahay 17 bisha toddobaad waxa halkan ugu qabsoomay doona kulankii koowaad ee guddiga dejinta miisaaniyadda siyaasadda miisaaniyadda ee sanadka 2026 sida uu dhigayo xeerka maamulka maaliyadda wuxuu sheegayaa in guddiga siyaasadda miisaaniyaddu ay eegto muuqaalka guud ee miisaaniyadda 2026 waxaanu falaqeyn doonaa qodobada hoos ku cad ama halkan ka xusi doono kow muuqaalka guud ee dhaqaalaha dalka iyo dunida kale laba geedi socodkii miisaaniyaddeena sanadihii la soo dhaafay saddex qaabeynta xadka miisaaniyadda ee sanadka soo socda budget ceiling afar mudnaanaha miisaaniyadda ee sanadka 2026 budget priorities shan tallaabooyinka maaliyadeed ay tahay inaynu qaadno sanadka soo socda si aynu u xoojino dakhli ururinteena una waafajino una wanaajino kharash bixinteena sidaa daraaddeed waxaynu saaka u fadhinaa inaynu arrimahaas falanqeyno oo aynu ka doodno oo aynu isla meel dhigno si miisaaniyaddu sidaa u ekaanayso iyo waxyaabaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ee lagu darayo iyo dhaqaalaheenna aynu eegno inagoo barbar dhigayna sanadihii ku horreeyey shirkuna iyo kulanku waa inoo furan yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu